badankiid waxay isweydiinayseen Dr. Cabdiqaadir sanooyinkan la soo dhaafay xageeba ku maqnaa qaarkiin waa soo wacdeen oo iga weyseen meelihii aad iga barateen iyo maaragtay programkii caafimaadkii xataa aan ka soo jeedin jirnay carruurta ku saabsanaa intii aan ku guda jiray daaweynta carruurta ayaa waxaa aad ii saameeyey waalidiinta ama hooyooyinka ilmahooda uu ku dhacay xanuunada wadnaha ee carruurta kaasoo aan dareemay kuwo badan aan arkay inaynan garanaynin boqolka horeba yani cunugiyo xanuuno obvious iska qaba caadi oo calaamadihii aad ku arkaysaba inayn dareensanayn haddii ay dareemaanna aan heli karin oo dhakhtar carruur oo Soomaaliyeed oo waddankan Kenya hadda jooga uusan jirin oo wadnaha ku takhasusay haddii diagnosis loo sameeyana haddana maaragtay ku rafaada meeshii ay aadi lahaayeen dalka gudihiisa iyo dibaddaba hadday noqoto oo yani sidii cunugooda loo daaweyn lahaa sidaas daraadeed ayaa marka waxaan go'aan ku gaaray after a lot of thought aan ka fikiray arrintan in aan ku takhasuso xanuunka wadnaha ee carruurta kaasoo aan ku qaatay trainingka alxamdulillah aan ku qaatay waddanka gudihiisa iyo dibaddaba waxaa ilaahay maadiya maanta in uu jiro dhakhtar pediatric cardiologist oo ku takhasusay wadnaha carruurta oo af Soomaalina ku hadlayo idinka qabtirayo muslimona idin fahmaya insha Allah wixii hadda ka dambeeya waxaan guda gali doonaa inaan daaweyno ilmaha wadnaha laga hayo in aan maaragtay bulshadana aan wacyi gelino oo aan cilmina aan siino si ayagana ay wax u fahmi karaan oo cilmigaas yuntafaca insha Allah annagana markay aanan adduunkan aan ka tagno insha Allah ilaahay uu nooga faa'iideeyo oo aan ajirkeeda helno waa walaalkiina Dr. Cabdiqaadir. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.